waa Maryam Xudeen Maxamuud saa'iideedii waxaan ahay qoftaan waxaan ku dhashay gobolka Shabeellaha Safgaaraan Shalaambood laakiin Muqdisho waan joogi jiray dhibkaan meesha uu soo gaaray anigoo guursado gabar yar siinay suuqa adeeg doonaya dhibkaan igu dhacay markii laga qaaday isbitaal Al-Hayaada leegay waxba laga ma qaban keysanaya leegay markii la dadaal dhaqaatiirta wax boog iga dhayeen waxba uma qabo karnaa gabadha neerfeena qatay oo dalka dibadiisa hadii ay qaadi kartiin anagana waqtigaas ma awoodin inaan tagno sidii askaaga noolaa alxamdulillah ilaahay waxba iga ma haleyn waa la qabsada noloshayda waa ku noolaa alxamdulillah oo bacda operation kala angalo kaada ugu xirantay qaliina leeyo sameey kaada haasta dhagax weyn aan leeyahay bixi alxamdulillah idan waa ka noolahay oo ka fiicanahay haddana gobolkaas aan ka imaaday wiilashaan aan la soo xiriiray xabada waxay iga dhacday lafta dhabarka ee dheer korkeeda markii garbaha saan loo ku aadayso meeshaan ay soo baxay hadii ku jir leeyahay way ku dhibaatay leedahay laakiin alxamdulillah ilaahay baa iga saaray wayda iga baxay xabada walaa qof shakhsi ah igu danta xabada igu ma dhufan xabad wiifto waa ila leeyahay baa dagaal jireen meel dheer ka dhaceysay aartiis aan sabab isbitaalka waxaan ku jiray muddo 2 bilood maalintii laga soo saaray intii imid ilaahay oo naxariisto adeerkay meeshaan joogay u yeereen reerkii inta isbitaal ku jira xaalan aksaas naqato waxba ku ma tareysay hooga mid fiican ama ka raadsataa marka bal isbitaalka ka soo baxda lagu heshiiyay isbitaalka maalintii laga keenay adeerkay ala wacay waxa la kitaabka ameerkeedu waa u geey waxba kale uma hayn gabadhaas waa furno sheek alxamdulillah idan qadartay ka mid tahay xanuunka markaas xabadii ugu dhacay xooga iga xanuun badnaa oo la igu nacay waxyaabo ilaahay keenay oo qadar marka dhaawaciga 11 meelahaas kama yaro inta aan saan ahay Shalaambood waxaan u aadnay waa dagaalaha wadankii ka dhacay meeshaas waa ku qaxnay waxaan u qaxnayna markeen hore asali ku ahayn hadaa tagna meesha aan degnano xooga magaaladii loo soo noqdanay guriga markii qaali laga dhigo qolkii aan ku degnay $10 oo kala waqtigaas $50 in laga dhigay anagana sabab jira aan soo naqaweyn ana been anagoo yariir oo dhintarto agoonimaan ku soo karnay hooyadayna noo xamaali jirtay qeyr la siiyo markii aan qaxayna xataa ida xamaalisay meeshaan degnay waxaan soo naqaweyn sabab jira awgeed guriga qaali laga dhigay nolosha isbedeshay gobolka saas aan joognaa wax i caawiyo hadda wax ii qabto ama meel i geeyo wili ma arkin hal qof aan niyadii igeliyay qaraabo ahaan way tahriibeysa 2008 meelaas hayda marna baxa ada meel tago waxba ku qaban doona ay soo duceey naag weyn oo diida oo la fiirshay dhali karto way ahayd way tagtay alxamdulillah waa muddo joogtay meeshii iyada sharci ka weyso qaxooti ku noqoto Holland Pakistan tagtay Jarmal iska dhiibtay waa la soo celisay sharciga la siiyay xidha gabar curyaan ayaga maqan sa'iidii sheegtay waana aan soo korsado iyada 4 jir aan wada ka helay kadibna markay naag weyn noqotay qaan gaartay guursatay ninkii nacay leegu soo celiyay haddana aan iyada haysto ilmihayga ninkeyga iga maqan waxay ii sheegtay anigu ma ogi warqada ii soo dirtay waxay tiri waa la ogolaaday dacwadan sheegay oo ku qaada ka soo tag Shalaambood inta imid ana awoodin xataa baasaboorka dada ii gooyay ani gabadhi markaas caawin lahayd Uganda aadisiinayna tiri baasaboorkeena la siiyay Uganda dacwada way dhimantaa ma muddo soo qaadka liidaha ii dhimanay wal iska laabay tiri cid ma kor saarnaa kartid maya cid ma kor saarnaa kartid yani muddada hala soo baxa la dhaaway dhiman tahay iska laabay tiri waa laabtay 22 Maarsadii soo dhaafay aan leedin ogolaado waa soo bixisay على كرهها سفارة داس يعني المهي يو أضاقي يعني مركا أنت إمت قبل كلا إذا نسيت عني وجود دوالد أحد أنا قد رومتي سفارة يوان لو كنا نقن في سي وأنا مسودية كبعد أضاق حداني وبحر الكاميرا نيرو دعوة بدلا تري إذا أنا عند الكاميرا المي ووضنا هذه يعني كم قاعد كرقف سنة تاني قاعد بيك باور صار مكبيح كارو كواسكي هرسة iska haray wiilal hadda idinkoo kala aha ku jireen wiilasha baxay iyada dhashay way caawi kareen laakiin way reebeen iidana waxay igu maslaxday inaan soo raadsado fiisa Kenya aan ka daba tago
iska laabtay Shalaangood soonkii iyagii hadda meesha daraaday galeen Hollanti ka bacdi waxaan dhahay dhulkan soo maraa hadda wax ii haysid si alaabsay ugu qaadato ileen fiisi Kenya dii la helan qof iga caawinaysa ma haysan qarashki waa dhulkan soo maraa hadda muslim kale dhulka qarashkiisa iga bixiyaan ii gabadhi araadsana raadsay tir soo maraan wax qarash ku ma hay laakiin di dacwadaas la ogolaado taas un baa ku qaban karaa inta ay mid dhulkii ala maraa haliir ma istaqfurlo markaan naqane intaan naqan koor xooga barbaleen wixii meeshina ma awoodi in aan igi taga qarash ma haysti ma soo karo iidan mar walba xoog barnaamijka in wax ii tarayso laakiin wax qarash ii haynin wada sheekaysigeyga iyo isla sheekaysigeyga sokor ay ugu dhacday hadana ismaana aad inta uu xanuunsado jooga xaliigay istaal Carafaad dhakhtar jooga waxay dhahay hadaa saak wax soo cunin sokor qabta subaxnimeedan wax uu cun waa cadays waa tagay waa laga baar kaada laga baaray dhiiga laga baar sokor qabta waxay sokortaas ku yimaado barbaleen aadiis gelis ma ayna tii dhaxasheed amba wax laga qaadanayo dadka ma aha iska yaray barbaleenka waa iska laabtay soo bixay tiri ada dhul mari karti soo mar wiil aan diriseen xagga naagtida Amerika jirto dhaay 25 bisha 9aad aleega raba Kenya inaan joogo fiisan waa waay dhulka maraa waa ku raacahanda caawinaysa adii gabadhan ila dhalatay gabadhan kalena adeerkeeda la hadda iidan waxaan dhahay baladii qarash la helay dhulka adna qadiga caawi aan tagno markii aan u sheegay inaan soo baxay inta soo dadana aan diyaarsaday ee qadka waxay i soo dhigtay dacwadu waa ka saaray iska joog iska joogay iidan hadda ilmihi waa qaadatay mana xariirno qadka waa ku arkaa laakiin ilaahay baa wax bixiyo dadkana saacaaway taasaan ugu wanaagsan tan labaad ummadda muslimiinta meel walba joogan intii daawanayso ama ay maqasho waxaan ka codsanaynaa wax ay qabtaan telefoon lambarkeyga dileega la soo xiriira waxa waa furaha 5 ama furaha 2 69 59 72 midka markaas ii shido